magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta loogu dhawaaqay shirkad ay ku bahoobayaan injineeradii dhawaan ka qalin jabiyay jaamacadda Eelo ee magaalada Boorame iyo injineeradii hore magaalada ugu sugnaa iyadoo shirkadan magaceeda loo soo gaabiyo IMA waxaana furitaankii shirkadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socotay jaamacadaha Camuud iyo Eelo ee magaalada Boorame salaadiin culamaa'udiin waxgarad maamulka heer degmo iyo heer gobol ugu horeen madashan waxaa ka hadlay agaasimaha shirkadda IMA injineer Cabdiqaadir Aadan Bade waxa uu faahfaahiyay sida ay u shaqeyn doonto shirkadan iyo ujeedada loo aasaasay waxa looga maadaama ay injineerada hay'ad difacadii ugu horeysay ee gobol ahaan soo baxda kuna soo baxda fakulti cusub oo maaragtay ku cusub dalka oo si injineer ah waxay yiraahdeen si difacadii ugu horeeyay ee maaragtay fakultiyada ka soo baxay طريقة مريان حملنا aqoontiini bulshada iyo dalkaba uga faa'iideeyay waxa sameeyay structure aba qaab dhismeed ay shirkadu qaab dhismeedkaas oo maaragtay kala ah golihii boorka oo ah golaha sare iyo golaha fulinta oo usi kala baxaya waxaa iyaduna madashan ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka Somaliland ee Now ee gobolka Awdal Marwo Kawsar Ibrahim Rijaal waxayna shirkadan ay ku bahoobeen injineerada gobolkan ka codsatay inay qiimo dhimis u sameeyaan bulshada iyadoo xustay inuu maanta soo dhow yahay ictiraafkii Somaliland waxayna hoosta ka xariiqday in shirka maanta ka furmay dalka Ingiriiska ee loogu hadlayo qadiyada Soomaalida uu noqon doono mid ay guul ka soo hoydo Somaliland maayarka magaalada Boorame Cabdiraxmaan Shidabile oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in nidaamka dhulka ay dawladda hoose ka wado gudaha magaalada Boorame uu noqon doono mid ay ku wareejinayaan injineeradan maanta ku midoobay shirkadan cusub waxa uuna sheegay inay kala tashan doonaan wax kasta oo dawladda hoose ka fulinayso oo dhanka horumarka ah gudaha magaalada Boorame cusubna waxa ka mid noqon doona injineerada halka fadhiya qaar ka mid ah oo xafiiskii town planning-ka iyo naqshada iyo muhagi doona qorshaha magaalada cusub culamaa'udiin salaadiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee munaasabadan ka soo qayb galay oo iyaguna marka hadaladooda la isku soo aruuriyo waxay ku soo biyashubanayeen taageero xoogan oo u jeedinayaan shirkadan maanta ay ku midoobeen injineerada ku sugan gudaha gobolka Awdal gudoomiye ku-xigeenka gobolkan mudane Cabdiraxmaan Nuur Sugaal oo isna gabagabadii madashan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkadan ay ku midoobeen injineerada ay noqon doonto shirkad u faa'iideysa bulshada kala duwan ee ku sugan gobolkan Awdal iminka barnaamijka soo jeediseen ee halkii yaalay markii Boorame ahay markii hore iyo markii iminka dambe aad bay u kala qurxoonday maskaxdii soo saartay ee macallimiinta jaamacadda Eelo ahayna mahad ballaaran baan siinay waxaan filaynaa arrintaas soo bandhigteen ee horumarka ee quruxda ee tayeynta ee magaranaysaay inuu dhaqaalaha ku yareynaysan halka maanta soo bandhigteen waxaan filayaa kii ilaahay intuu dhiibay inuu halkaas ka soo xadirin doono waan filayaa injineero badan oo runtii waayarag oo injineeriga soo jeeda xatay oo runtii waayarag waa joogan bilaab la arkaya waxa weeye artigayaan digan oo runtii si fiican u dhigaa ورقيا آديا ما يقوم هذا وحوي قاعد يجربي وحكم طبعا يقول عينا آديا وحوي ترى بدنا صوت حلو يبدل أكيد بري يبدل كي ولا سلام وجهك وبالله التوفيق السلام عليكم عبد الفتاح أحمد Somali Channel مقالة بورما